maalmihii aynu soo dhaafnay oo dhan booliska Barcelona waxay baadagoobayeen wiilka halkan uga jeedaan ilaa markii dambe meedkiisa ay kasoo dhex heleen gunta hoose biyaha badda Mediterranean wiilka waxaa yidhaahdaa Jimmy Paul Grace waa 20 jir arday dhiganayay University of Alabama wiilka maalmihii ugu dambeeyay markuu wuxuu ku sugnaa Barcelona wuxuu haystay fasax hal isbuuc fasaxaasna wuxuu kula qaadanayay Barcelona arday uu garanayo halkaas ku sugnaa iyo saaxiibadiisa 17 Maaj aynu soo dhaafnay bishan gudaheeda waaye wiilkan subaxnimadaas waa la waayay Airbnb uu deganaa muusan imaanin familigiisii waa waceen teleefankiisii ma dhacay raqadiisa iyo ruuxdiisa markii ay familigiisii saaxiibadiisii ay waayeen kadib waxaa lagu wargeliyay laamaha ammaanka ee Barcelona booliskiiba wiilka baaritaan kula dhaqaaqay jidadka waxaa lagu soo dejiyay waraaqadaha dadka oo baadi goobaaya oo dhan kadib waxaa dib loo baaray CCTV-da goobihii ugu dambeeyay 24 saac ugu dambeeyay wiilkan meelihii uu ku sugnaa soo saaxiibadiisiiba waxay yiraahdeen waxaa ku sugneen kalaab la yiraahdo ee Night Shoka wuxuu naga soo tagay 3 habeenimo markaas baa noogu wardambeysay kadib kaamirooyinkii waxa ay duubeen oo dhan wiilkan waa la daba galay markii dambe bad u dhow kalaabkii uu ka soo baxay ayaa waxa laga helay teleefankiisii iyo walletkiisii oo dul sabeenaayo ama dul heehaabayo biyaha badda bartiiba waxaa laga bilaabay baaritaan qoysayaal baa badda loo diray doomana badda lagu fasaxay ciidamada badda oo Barcelona gudaha u galeen helicopter la kaciyay drones baa la diray markii dambe wiilka waxaa meedkiisa laga soo saaray 4 mitir biyaha hoose ee gunta badda markii la soo saaray waxaa loo dhiibay maamulka Barcelona iyo ciidamada maxaa la yiraahdaa dhaqaatiirta meed baarista wiilka markii la baaray waxaa la dhahay wiilkan shil ahaan buu u dhintay markii la fiiriyay jirkiisa waa caafimaad qabaa dhaawacyo ma lahayn suni waxyaabahaas jirkiisa kuma jirta walletkiisa wuu nabad qabaa teleefankiisa wuu nabad qabaa camera markii CCTV-da dhan markii la fiiriyay kaligiis ba meel walba wiilkan aaday marka waxaa la wiilkan baddu imaaday jabalka badda asoo taagan lugta u baxday sidaas buu biyaha badda uga dhacay laakiin wiilkan kiiskiisa waxaa viral ka dhigay laba arin mid waa wiil 20 jir ahaa oo Barcelona u imaaday dalxiis hogaamiye diimeedna wuu ahaa arday samafal ahaan waxyaabaas ku fiicnaan wuu ahaa yani cunug samafalna wuu ahaa waxyaabo fara badan buu qabtay asoo 20 sano jira yani sheekadiisa dhinac kaleeto arday dalxiis ahaa oo ku dhintay Barcelona viral bay ka dhigtay waxaa kale oo jira muuqaal baraha bulshada heesta muuqaalkaas waa wiil iyo gabar bad taagan wiilka lugta u baxayso kadib wuxuu ku dhacayaa badda gabadhana ma badbaadinayso wiilka way qaban karta laakiin ma badbaadinayso muuqaalkaas waxaa la leeyahay waa Jimmy iyo girlfriendtiisii oo 6 bilood ugu dambeysay ay isla socdeen walow marar qaarna la leeyahay markii aad fiirisid muuqaalkan waa muuqaal hore marka wiilkan maalmihii la soo dhaafay oo dhan Spain iyo sidoo kale ta for you page-ka ba asaaheysay laakiin ilaa iyo hadda wiilkan kiiskiisa waxaa waaye shil maamulka Barcelona sidaas bay u diiwaan galiyeen soo hadii ay xiisaysid kiisaska gaagaaban ee sidaan oo kale ah TikTok-geega soo follow garay si maalinle ah ayaa halkan ugu soo gudbiya